war Soomaalida waliba Etoobiyaanka ama aaminsan Mareykanku inuu faa'iido keenayo raaba mahmahay wuxuu yiri hadii biyo waxtar leeyihiin boodadooda ka muuqan lahayn laana aniga ku dhex jira 24 saac hadii Etoobiyaan iyo gumaysi ay waxtar leeyihiin waxa laga arki lahaa Soomaali galbeed iyo NFD inuu arinta tahay dadka Soomaaliyeed in lagu xukumay adduunka ku xukumay danteena ha garanayna anagoo inii garanayno hadad garataan oo ku leeynayna taas inay tahay maanta laana Soomaalidu markay baabaa'isay cid u hadlaysa male marka damcay dadka baabina iska qabtaana waatan wax ayaga loogu daray karba دستور أيوة إلهي دجية قرآن كوكو دجية محمد سنة تعالى صلى الله عليه وسلم عليه دستور كسأيوة حالة سمي صادرا سمعلي هذا أكتر مقدشة لح بلاد أيوة شقينا إثيوبيا تعمير كل مادة do you believe إنه الدستور كاس وقلدنا إيمان وحن قرأت اللون كله ودقيت شيء أقوه رئيه الدين سيقول إنه الدستور ما هو ولا الكتاب كتاب واحد وواحد أبدا إلهي كده laba jeer bad magacayga qaladeen magacayga waa Aasha Abtar Qaasim dawladda ma difaacayo waxaan difaacayaa dastuurka Ethiopia iyo kuwa hadda u sacabinaya Ethiopia qabiil dartiis weey kuwa diidan waxay u dhowdahay inkastoo ay ku gaban karaan hadda qowmiyanimo darteed ama diin darteed aniguna waxaan labadoodaba waxa ka sii xoog badan qabiil problem soo ku jira macnaha waxaan u fahmay dadka reer Muqdisho ee deegaanka degan inay dadka problem ku jiraan waxa soo baxda marka kadib markii la ogaado warlooradii iyo problemada inay xamar yihiin dadku way iskilin gareeyeen dan marka waxa soo baxay haday iskilin gareeyeen hadana al-qaacida lagu level gareeyay wixii la jirana dantooda ay wataani dantoodana waxay ku jirtaa kuwaan iyaga waxba ku diidaynin ayay dantooda ku jirtaa inay taageeraan markaas sida u dhigay waxaad moodaa inay tahay dawladdu dhib mooyana faa'iideyna markaas ay ka soo soconaasha saas ku raacsan tahay ha horta marka horeysa waxaan moodaa wiilasha inay gabdhaha wiilasha yani interview gareen laba jeer bad magacayga qaladeen magacayga waa Aasha Abtar Qaasim marka walaalkay Axmed aragtidiisa in maaragtay ay igu diidan yahay in meeshii ay dawlad ayna jirin anigu dawladda ma difaacayo waxaan difaacayaa dastuurka dastuurkana Soomaali baa dhigtay ma maqal dastuurka inay soo sameeyeen ma tagi shirkii laakiin waxaan ogahay in dastuurka Soomaali ay dhigtay waa dhici kartaa individuals dawladda ku jira in ay Etoobiyaanka ama ay recommend gareeyeen ama ay u tureen waa dhici kartaa oo siyaasad bay ahayd laakiin anigu waxaan ilaalinayaa aan dhowrayaa aan rabaa in la xoojiyo waa dastuurka Soomaali isku raacday markuu kaasi nabad yahay in anagoo dhan isku raacno ilaalino wuxuu noqonayaa dastuurka mid kala saara kuwan hadda dawladda sheeganaya jooga haday daliil leeyihiin dastuurka kala saari lahaa waa in anaga aan support gareyno laakiin Aasha dastuurkii ma kala maqnaan karayaan dawladnimadii dastuurkii dawladdu u baahan yahay wado socodsiiso meel maraysa hadayna dawladii meel mari karin waraaq soo maahanayo waa saas weeye laakiin waa intii hadda isqadintay ee meesha waqti badan ku lumisay ee joogtay dastuurka israacisay baa haddana madax ka oo meeshii u joogta laakiin waa loo baahan yahay waxay ku tusaysaa meeshan dastuurka inuu ahayn wax dhab ah ee ay tahay warqad la doonayo in lagu shaqeysto inay noqoto soo damaanka laakiin waa ku raacsanahay Aasha in loo baahan yahay dastuur dhab ah la sameeyo oo qawaaniinta dimuqraadiga ku fadhiya wadanka kartidiisa iyo manaafacaadkiisa wuxuu qaadi karana maxaan ku lahay degka way laakiin waxay leedahay Aasho waa bilo halkaasi hore ha looga sii socday dib looga noqon daan waxaan qabaa bilo waxba kama qabo Greekskii hore waxay oran jireen kalluunku madaxa ayuu ka qurmaa oo qurmiskiisu ka bilaabmaa soo garanaysa dastuurka aduu ka xun yahay anu waxaan aaminsanahay madaxda ka soo baxaysa dastuurka inay yihiin madax khasaaray yihiin barqaatigeena maanta waynu haynaa waa tahay dhageystayaasha u galo su'aalaad jirmaa comment number 1 horta intellectualska yaga iyo dadka yagii waaweynaa ama madaxda ahaan jiray ama shacabkeena matali karay aan role models u qaadan lahayn waxaa ka muuqata from get go markii dawladda la sameeyay in complaining distraction waxaa uga jeedaa eedeyn aan dhammaanaynin burburin aan dhammaanaynin wax xal ah xalku wuxuu ku jiraa waxa jira aan haysano aan wax ku darsano waxa ka dhiman aan hagaajino
maya gari xalaal ma dhasho dastuurkan dawladda waajibka koowaad ee saaran waxaa weeye inay waddanka difaacdo Soomaaliland waa la ogyahay cadawgeena koowaad xanuunka Soomaaliya dhalanin buu ogyahay inay Ethiopia tahay marka dawladda haddii ay dastuur u jiro iyadaa burisay oo cadawgii waddanka ee taariikhiga 600 sano aan la dagaalamayno ugu yahay marka hadda waxaan waqti isaga lumin waraaqaha meesha lagu soo qoray dawladda Allah noo sahlo dawlad ma haysan marka su-aashaydu waxaa weeye dastuurkii haddii ama ay dawlad jirto dawladdan dadkii cadow ugu yeerayso ama markii dadka la laayo dhahay xalaaleynayso dhashay argixisay ahaayeen way mudan yihiin maxay dawladda يذكر وجه سؤال عاشق وجهه marka wixii caasho wixii dastuurkaasi aad sheegayso dawladii baa jabisay oo wadanka cadawgeedii keentay hadda anigu waxaan aaminsanahay Ethiopia la isku hayo Soomaaliya inay cadow la ahaan jirtay 700 oo sano ka hor baa la yiriyaa ilaa ay haddana dad ay qaato oo hoosteeda ku nool baa jira anigu horta xamar baan ku dhashay laakiin waxaa jira dad iga xiga dhibaatada Soomaaliya dadka galbeed Soomaali galbeed baa iga kasii badan inta ay Ethiopiaanka ay u geysato anigoo xamar ku nool xamaantana waxa ii keenay waxa weeye walaalkay kii ila joogay xamar oo idilay baa ii dayacay in ay abxaaro ayadoo leh waa nabad baan ula jirnaa amxaarada bilaash baa kaliya loo sheegayaa oo diinta iyo lagu xaglinayaa waxa lamid oo gaala ah oo wadanka joogta Ugandes baa jooga Burundi baa jooga hadda baan doonaynaa kuwa kale inay yimaadaan caasho kuwaas kale waynu gelinaa su'aasha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah thumma salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad magacaygu Ali Raad Xasan Dooye waxaan ahay gudoomiyaha ururka midowga qowmiyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo gobolka kale ka dhisan markuu hore waxaan rabaa inaan comment yar bixiyo ka bacdina aan su'aal keeno aad soo gaabay laba saddex qaybood bay dooda hadda iiga muuqanaya qayb waxa weeye mid Soomaalida ku wajahan oo rajo xumo ka muujinayeen mudane Cabdirsaaq Xaaji Xuseen iyo professor Axmed Samatar iyo caashan la aftigeedu ay afka ku dhufteen taasoo ah war meeshana naalo inaga isdhignay intaan waxaan isku hayno ilowno aan bal gacmaha isqabsanna si aan dib ugu noolaano waxaan qabaa eedaasi haddaan Soomaalida qurbaha nahay haddaan kuwa gudaha nahay inayna wada qabanayso marka Soomaali waxaan leeyahay war Soomaalida waliba Ethiopiaanka ama aaminsan Mareykanku inuu faa'iido keenayo raaba mahmahayo wuxuu yiri haddii biyo waxtar leeyihiin bowdadeeda ka muuqan lahaayeen laana aniga ku dhex jira 24 saac haddii Ethiopian iyo gumaysi ay waxtar leeyihiin waxa laga arki lahaa Soomaali galbeed iyo NFD iyo dadka inaga nooga horeeyay ama Falastiin oo muddo badan ku jirta arrinna waa doodan ku saabsan dawladda Mareykanka haddana anagu dad qaatay dhalashada Mareykanka oo halkan degan waxay sameynayso siyaasadda Soomaalidu ma saxla mise waa qalad dawladda Mareykanku qaabkay Soomaaliya ula dhaqantay waa khaldan tahay haddaan nahay dadka Mareykanka ana waan u sheegnay annagu inay dawladda Mareykanku ku khaldan tahay inay dhinac istaagto dhinac khaldanaa ee aan haysan su'aashaada adoo soo gaabay dhinac aan haysan taageerada dalka haddaan ku soo koobo waxa kamid ah dawladdan hadda jirta markii la sameeyay waxay taageertay warlordski oo Muqdisho tagay oo rajxumadaas sii keenay waa u dhalan karnaa laakiin hadda inteena halkaan fadhida halkaan oo weliba rabashka Soomaaliya ku joogay haddaynu ku heshiin karno hal shay rajaynu qaban karnaa laakiin haddaynu inaga inteena tarweysiin karin dadka kale dibadda xagga gudihi ku jira ee ka sii fog marka ma hubo inaynu dib u dhalan karno waa ficlaan lahay waa la jeclaan lahaa lagama maarmaanna weeye laakiin sasaankeedu ma jiraan intaan su'aashu galay waxaan jecelahay inaan sheego sidaa ha loo wada burburo ha loo baabo haddana waa la isdhaamaa anigu intaan dersayay 20 sanadood iyo in ka badan qoomiyadda Soomaalida xaji intaad kayn karto ayaa hawshaydu ahay laakiin waxaan indhaha la iska qaban karin waxa weeye horena anigu waan sheegay war dadkii Soomaaliyeed ee degmada South-ka deganaayo South-ka deganaayo wixii la oran jiray Italian Soomaaliya deganaayo fidnadiini way badatay meel allaaliya meel leedin ka soo qabtana lama hayo amba qabiil ahaan isku dila amba madaxtinimo isku dila meel alla meel laga soo qabto lama hayo anigu ma ogoli horena waan u sheegay waqooyi Somaliland inay ka go'do wadanka intiisa kale la soo marin maayo mana ogoli laakiin waxaan indhaha laga qarsan karin waxa weeye dadka degmada ku nool dadaal yar bay la yimaadeen distoor bay samaysteen ay isku ogol yihiin hawl iyo maamul baa u socota imika ilaa 15 sanadood in ka badan meesha la soo marin lahayn la soo qaban karin lahayn waxa weeye jamhuuriyadda gobolkeedii koonfureed marka jawaabteedii dadka South-ka
ee Soomaaliyeed ee walaaltinimadu naga dhaxayso de waa laga sugayaa soo hadda garmaysa waana isku jeedaan waliyo dal Soomaaliyeed u soo jeedaan anigu ma arkayo waa kowtaas talabaad aniga waxa ila tahay dad hadday nool yihiin oo ay baqtiin oo ay baabiin oo ay taariikhda ka baabiin da lagama quusan karo bini aadam nool oo mar walba laga yaabaa inay rajo timaado marka anigu waxaan rajaynayaa intaan noolahay inay mar uun balbiqil kale oo soo baxo oo dad kale oo Soomaaliya oo karti leh oo wax garad ah oo waayeel oo adduunyada nosada ay soo baxaan laakiin mid kale aan doonayaa inaan ku daro halkaas waxa weeye haddii dawladda maanta waddanka joogta ee ku meel gaarkii aniga xaggayga ay tahay mid aan karti lahayn dadka Soomaalidu aanay ogolayn aanay samaysan dadka diinta la ordaya ee doon